isku soo noqod wanaagsan saxaabta qaliga ah meel walba joogtaan magacayga waa qaliiji weli waxaan kuda jirnaa casharadani fuushanka ama lisan gaari wadista waxaan si dhammaystiranaa casharkii 11aad qaybtiisa labaad oo aan maraynay su-aasha 31aad wuxuu ku leeyahay qaybta koowaad Sie fahren zügig auf eine Landstraße und sehen ein Reh in einiger Entfernung in der Nähe zur Fahrbahn. wuxuu ku leeyahay waxaa ku socotaa buu ku leeyahay Landstraße waxa waaye wadooyinka tuulooyinka ah ayaa ku socotaa buu ku leeyahay waxa arkaysa uu ku leeyahay deerada xayawaanka la yiraahdo oo sawirkeeda hoosta ka arki doontaan wax yar meel ka baxsan wadada oo dadka laamiga wax ka baxsan ku arkaysa uu ku leeyahay wie müssen Sie sich verhalten sidee u macaamilaysa qaybta koowaad wuxuu ku yiri ich muss bremsbereit sein waxa diyaarsanaya uu ku leeyahay braking ayaa diyaarsanaya ich muss die Geschwindigkeit vermindern xawaariga ayaa yareynaya uu ku leeyahay inta u dambayso ayadan ah ich muss ein Gefahrbremse durchführen Gefahrbremse waxa la adigoo gaari wada hal mar inaad gaariga si xoog u qabatid ayaa sameynaya uu ku leeyahay markii aan ka arko meel ka baxsan meel wax yar u jirta laamiga baabuurta ku socdaan marka teeba sax ah waxa saxda waxay tahay in braking aad diyaarsid markii aad ka aragtid deerada meel yar wax u jirta laamiga maxaa yeelay baashan aad ay u orod badan tahay waxaa laga yaabaa in laba mar markay soo bood ka bacd hortaad ay imaado iyo sidoo kale xawaarahaaga in aad yareysid oo aadan xoog u soconin labadaas xabo ayaa sax ah su-aasha 32aad wuxuu ku leeyahay video daawo hadda video daawatay marka wuxuu ku leeyahay wie verhalten Sie sich jetzt richtig si saxda hadda u macaamilaysid sida way ku leeyahay waa aragteen idinku sadana lagu socdaa meeshan adigoo gaariga wadid ayaa xayawaan baa ka soo gal meeshan qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich halte das Lenkrad gerade und fest steeringka gaariga laga wareejinayo waa xoog ay u qabanaya waana tusinaya ku leeyahay oo meel dhan u leexinay qaybta labaad wuxuu ku leeyahay ich weiche nach links aus waxa u soo leexinaya gaariga dhankan bidixda u soo leexinaya ku leeyahay tan u dambeysana wuxuu ku leeyahay ich weiche nach rechts aus dhanka midigta ayaa gaariga u leexinaya ayuu ku leeyahay marka taaba sax ayadana xalka kaliya uu ku furan waxay tahay in haddii xaaladan oo kale kugu dhacdo in aad steeringkaaga toosid hortaadan aad gaariga u wadid maxaa yeelay haddii aad dhankan aadid waxaa laga yaabaa inaad meeshan shil ku gashid oo gaarigan halis ku keeno haddii dhinacan soo aadna waxaa laga yaabaa godkan meesha ku jirna adigana gashid oo dhiba u keentay marka wax saxda ah waxay tahay haddii xaaladan oo kale kugu dhacdo in steeringka aad toosid gaarigaagana hore u toosid yani sida aad tahay si ahaatid su-aasha ku xigtay su-aasha 33aad sidoo kale wuxuu ku leeyahay video daawo فيديو اسلا فيديو عمل هدي اداوتي wuxuu ku leeyahay wie sollte sie sich jetzt verhalten hadda sida u macaamilaysa uu ku leeyahay qaybta koowaad sidoo kale wuxuu ku leeyahay ich weiche nach links aus dhanka bidixda ayaa gaari u leexinaya uu ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay ich halte das Lenkrad gerade und fest horteyda ayaan u haynaya uu ku leeyahay xoog ayaan u qabanaya tan u dambeysana wuxuu ku leeyahay ich führe ein Gefahrbremsung durch Gefahrbremsung hore idin kugu sheegay waxa waaye markii hal mar gaariga aad break wada qabanaysid ayaa la Gefahrbremsen kaas ayaa qabanaya uu ku leeyahay hamara gaariga dhan wada celinaya marka aydan teeba sax waxa saxda waxay tahay in aad steeringka toos u heynaysid isla markaana xoog u qabanaysid iyo sidoo kale tood maadaama hadda xayawaankan saadkaaga sii dheeri adigana gadaashaada aysan qofna joogin waxa aad sameynaysaa Gefahrbremska sameynaysaa hal mar oo breakga iyo kublunka aad taabanaysaa hal mar si oo gaariga hal mar xoog u wada istaago marka labada bis ayaa sax Su-aasha 34aad wuxuu ku leeyahay Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Fußgänger auf ihrer Seite habeenkii wuxuu ku leeyahay adigoo wada oo Landstraße wadooyinka tuulooyinka ah adigoo maraya ayaa waxa ku aragtay uu ku leeyahay qof lugeynaya laamiga geeskiisa dhankaaga qof lugeynaya ku aragtay ku leeyahay wie verhalten Sie sich sida u macaamilaysa wenn Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden wuxuu ku leeyahay haddii gaari hortaada ka imaanaya oo markii iftiin xoog leh kugu shubo wax oo kugu daaro oo waxa arki weysid maxaa sameynaysaa uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay beschleunigen waa si sheerlin uu ku leeyahay gaariga möglichst schnell aus dem Bereich der Blendung herauszukommen iftiinkaas meesha uu kaaga imaanaya si ugu baxdid waa si sheerlin uu ku leeyahay gaariga qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay aufblenden und unvermindert Geschwindigkeit weiterfahren hatta adin nalka daar uu ku leeyahay
xawaarahaaga adigoo san bedelin hore u sii soco ku leeyahay ta u dambeysana wuxuu ku leeyahay geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten xawaarahaaga yaray ayuu ku leeyahay hadday macquul tahana gaariga celi ayuu ku leeyahay ayadan teeba saxe waxa saxda waxay tahay haddii xaaladan camal kugu dhacdo in xawaarahaaga ay yaraysid haddii aa isdhihi kartid inaan dhaqaaqi karin hadii aragtid in gaarigaaga aad celis haddii aad arrin deg deg ay noqon karto marka tan bis ayaa saxe su-aasha 35 wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie sich verhalten sidee u macaamilaysa uu ku leeyahay wenn im Fernlicht plötzlich wild auftaucht wuxuu ku leeyahay haddii fernlichtiga nalka oo weynka ah aad artid haddii oo xayawaan kasoo baxo meesha maxaa sameynaysa sidee u macaamilaysa uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay huben und bremsen honk ayaa daraya uu ku leeyahay break ayaan qabanaya sofort abblenden waa daminaya uu ku leeyahay fernlichtiga kan u dambeysana wuxuu ku leeyahay mit Fernlicht unverändert weiterfahren adigoo oo xawaarahaaga waxba ka bedelin nalka weynka ah iskaga socoyo ku leeyahay aydan teeba saxe haddii oo marka xayawaan kaaga soo baxo meesha adigoo nalka weynka ku daaran yahay honka u yeerinaysaa breakna waa qabanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa ku daminaysaa nalka weynka ay ku daaran marka labada bis aydan saxe su-aasha 36 wuxuu ku leeyahay bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht ab wuxuu ku leeyahay meel mugdi adigoo maraysid ayaa gaariga hortaada ka imaanaya nalka dami waayo ku leeyahay was können Sie tun maxaa sameynaysaa noch einigermaßen sehen zu können si aa wax u aragtid maxaa sameynaysaa ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer sondern zum rechten Fahrbahnrand schauen wuxuu ku leeyahay ha fiirin uu ku leeyahay dhankan oo baalkan oo iftiinka meesha ka imaanaya kaliya waxaa fiirisaa uu ku leeyahay Fahrbahnrand dhankaada geeskaada meesha laamiga oo qarkiisa ah fiiri ayuu ku leeyahay ta ku xigta wuxuu ku leeyahay auch Fernlicht anschalten sidoo kale ana xataa waxaa daara ku leeyahay nalka weynka daara ku leeyahay iyo ta u dambeysa aydan ah Sonnenblend herunterklappen waa aragteen gaariga markaa wadaysin bahal yar oo kor saarnaa jirto oo markii qorax indhaha kaa qabato oo hoos loo soo dhigayo marka taas ayaa hoos soo dhigaya uu ku leeyahay si iftiinkan uu arki waayo marka aydan teeba saxe waxa saxda waxay tahay inaadan fiirin iftiinka meesha ka imaan oo fiirsid geeska laamigaaga dhanka soo jirta geeskeeda qarka ah inaad fiirsid in dad ay marayaan in aad ka dhici kartid naftirkaaga iyo in baabuur kale ay baakimiin waxay doonta ahaato mar walba waxa muhiim ah inaad fiirsid qarkaaga laamiga in aad fiirsaa mar walba muhiim ah su-aasha 37 wuxuu ku leeyahay bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf eine Landstraße Fahrzeug mit Abblendlicht entgegen wuxuu ku leeyahay mugdi ayadoo mugdi ah isla markaan roob da-aya ayaa hortaada waxaa ka imaada uu ku leeyahay iftiin u daaran yahay oo socdo tuulooyinka was müssen Sie berücksichtigen maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxdirtid ay tahay marka maxay tahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay durch Einschalten von Fernlicht können Sie ein Blendung vermeiden wuxuu ku leeyahay in aad daartid nalka weynka ah waxaa kaga fogaanaysaa uu ku leeyahay in oo adiga iftiinka indhaha lagaaga qabta kaga badbaadaysa uu ku leeyahay tan ku xigta aydan wuxuu ku leeyahay durch Schlieren auf der Windschutzscheiben verschlechtert sich die Sicht wuxuu ku leeyahay meeshan roob da-ayo ku dhaa mugdin waaye marka Schlieren waxaa la markuu roobka da-o miyaaradda waxaa dusha ka fuulaya dhibicda roobka oo dusha ka fuulaya Windschutzscheibe waxaa la miyaaradda qaybta hore ayaa la roobka korka fuulaya ayaa aragaaga xumeyn kara uu ku leeyahay ta u dambeysa aydan wuxuu ku leeyahay durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden wuxuu ku leeyahay Spiegelung roob markuu dhulka yaalo oo aragteen roob markuu dhulka yaalo oo iftiin ku dhaco iftiinkaas waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu toos adiga kugu soo dhaco marka iftiinkaas oo roobka oo laamiga dhex yaalo ayaa adina indhaha kaa qaban kara ayuu ku leeyahay ayadana marka teebaa saxe marka wax saxda waxay tahay in miyaaradda dusheeda waxa fuulayo roobka fuulayo ama dusha miyaaradda waxa ka fuula in oo aragaaga xumeyn karo iyo sidoo kale tad waxa saxda waxay tahay in iftiinka roobka dhulka yaalo iftiinka markuu ku dhaco in adigana indhaha uu ka qaban karo marka labada bis ayaa saxa su-aasha 38 wuxuu ku leeyahay welche Gefahren können entstehen halis noocee ah ayaa imaan karta uu ku leeyahay wenn Sie mit eingeschaltete Fernlicht fahren markii aad ku socotid nalka Fernlichtiga oo nalka weynka markaa ku socotid halis noocee ayaa imaan karta uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay entgegenkommen werden geblendet baabuurta hortaada ka imaanayso indhaha ayaa kaga qabanaysa uu ku leeyahay qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay wild auf der Fahrbahn wird geblendet duurjoogta oo laamiga dhex taagan indhaha ka qabanaysa uu ku leeyahay und bleibt im Lichtkegel stehen markuu nalkaas qabto ka bacdina nalkaas imaanaya dartiisna laamiga ay istaagayaan ayuu ku leeyahay
tan ku xigta ayadan wuxuu kula liegen gebliebene Fahrzeugen auf meine Fahrseiten werden so spät erkannt. Baabuurta oo halaabay ama yaalo laamiga geeskiisa ah gadaal dambe ayaa ka arkaysa ayuu ku leeyahay isla markii hore kama arkaysid ayadan inteeba saxe waxa saxda waxay tahay baabuurta hortaada ka imaanayso indhaha ka qabanaysaa iyo sidoo kale tood xayawaanada laamiga dhex taagan marka iftiinka weyn ka arkaan marka tagaya laamiga ilaa iftiinkaas oo ka dambeeya marka labada bis ayaa saxe su'aasha 39aad wuxuu ku leeyahay was müssen Sie nach einem Wildunfall zum Beispiel mit einem Rettun wuxuu ku leeyahay maxaa sameynaysaa ku leeyahay shil oo oo duurka ah maxaa sameynaysaa duurjoogta dhac maxaa sameynaysaa ku leeyahay tusaale ahaan markii oo reeha deerada oo kale tood markuu shil ka dhaco maxaa sameynaysaa ku leeyahay qaybta koowaad on anzuhalten weiterfahren anigoon waxba celinin ayaa iska sii soconaya ku leeyahay anhalten waa celinaya ku leeyahay Warnblinklicht einschalten waxaan daaranka freejaha daaraa ku leeyahay und Unfallstelle absichern waxaana xaqiijinaya ku leeyahay meesha oo waxaan amnigeeda sugaya ku leeyahay meesha oo shilka ka dhacay ayaan amnigeeda xaqiijinaya ku leeyahay ta u dambeysana Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten waxa ogeysiinaya ku leeyahay booliska ama qolada duurka ku shaqada leh ayaan u sii sheegaya ku leeyahay ayadan inteeba sax marka haddii arrintaas oo kale aragtid waa inaad gaariga celisaa Warnblinklicht aad daartid kadibna aad xaqiijisaa meesha shilka oo ka dhacay iyo sidoo kale booliiskan waa inaad wacdaa ama qolada duurka shaqada ku leh si ay arrintan ugu sii shaqeeyaan su-aasha afartanaad wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie sich verhalten sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay wenn sich ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr vermeiden lässt haddii aadan ka fogaan karin uu ku leeyahay inaad isku dhacdaan xayawaan laamiga dhex taagan haddaadan ka fogaa karinin sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay tusaale ahaan adigoo laamiga maraya ayaa xayawaan hortaad imaaday gaariga kama celin karaysa hortaada uu taagan yahay xayawaanka xaaladaas oo kale markaa maraysa maxaa sameynaysaa uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich behalte die Fahrtrichtung bei meesha wadada aan ku socdo baa sii heesanaya uu ku leeyahay ich bremse so stark wie möglich inta macquulka ah ayaa break qabanaya uu ku leeyahay iyo tan u dambeysa ayadan ah ich weiche immer aus mar walbo gaariga waa leexinaya uu ku leeyahay ama bidix u leexi ama midig u leexi mar walba gaariga meel ay dhinac ayaa u leexinaya uu ku leeyahay ayadan inteeba saxe waxa saxda waxay tahay haddii aadan marba ka maarmi karin inaa xayawaanka hortaada taagan yahay oo aadan ka celi karin gaariga in qaybta ku socod inaa haysid oo aadan gaariga marnaba dhinac u leexinin iyo waxa kale oo saxda waxay tahay inta macquulka ah break qaban kartid in breakaaga qabatid marka labadooda bis ayaa saxe in gaarigaaga midigta ama bidixda u wicisid macquul ma noqonaysa waxaa laga yaabaa inaan dad kale tood saameyn kale usii geystaa laga yaabaa haddii tusaale ahaan dhan kale u leexisid baabuurka hortaada ka imaan inaa isku dhacdina laga yaabaa haddii adiga dhankan kale aadidne oo duurada aadidne waxaa laga yaabaa in adiga naftaada kale halis ee gashaa laga yaabaa marka waxaa lagu leeyahay mar walbo hortaada u hayay gaariga inta macquulka ahna break qabo su-aasha 41aad wuxuu ku leeyahay Sie haben eine geparktes Fahrzeug beschädigt waxa saameysay ayuu ku leeyahay ama dib u geystay ayuu ku leeyahay gaari baakiman ayaa shil u geystay trotz angemessener Fahrzeit ist der geschädigt nicht erschienen ninka adigoo xataa sugtay ninka gaariga saameynta u geystay iskale ilmo soo ma imaanin uu ku leeyahay was müssen Sie tun maxaa sameynaysaa qaybta koowaad es genügt way ugu filantahay uu ku leeyahay Ihren Namen und ihre Anschrift einen unbeteiligten Zeugen zu geben qof meesha joogtay oo markhaati ka ahaa in aad magacaaga iyo adresskaaga aad dhibtay ayaa ku filan uu ku leeyahay ihren Namen und ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und Unfall unverzüglich der Polizei melden wuxuu ku leeyahay magacaaga iyo adresskaaga ayaa gaariga shilka u geystay meel ka gelinaysa uu ku leeyahay shilka meesha ka dhacana booliiska ayaa u sheegaysa uu ku leeyahay Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen adoo wax kala sameyn ayaa meeshaas kaaga tagi kartaa uu ku leeyahay markaa shil geysta ka bacdi ayadan inteeba saxe wax saxda waxay tahay in magacaaga iyo adresskaaga gelisid gaariga isla markaana booliiska wacdid qofka tan way ku filan tahay bis ayuu ku leeyahay kuma filno maxaa yeelay ninka markhaatiga inuu meeshaas kaaga tagaa laga yaabo adin dib dambe lagu siyaari karo marka in magacaaga adresskaada gaariga qaybta hore ama qaybta dambe aad gelisid ku surtid sida dadka la ganaaxayo kale warqada meesha loo geliyo iyo booliiskana wacid ku dhahdid booliiska arrintaas ayaa meeshaan ka geystay tan bis ayaa saxay su-aasha 42 wuxuu ku leeyahay unter welchen Notrufnummer erreichen Sie in Deutschland die Polizei und den Rettungsdienst wuxuu ku leeyahay numberkee ayaad numberka oo gargaarka degdega ah kee ka helaysaa uu ku leeyahay marka in Jarmal gudihiisa
markaa rabtid booliska iyo qolada dadka badbaadisid inaa wacdid markaa rabtid intee ka helaysa ayuu nambarkee ayaa ka wacaysa uu kuleeyahay qaybta koowaad 115 wacaya uu kuleeyahay 112 wacaya uu kuleeyahay 110 ayaa wacaya uu kuleeyahay teeba sax ah jarmalka laba number ay bisaya wici kartaa numberka 110 iyo sidoo kale 112 labadooda ayaa wici kartaa si aad ugula hadashid booliska ama qeytandiinska qolada wax badbaadisa su-aasha 43 wuxuu ku leeyahay Sie sind in einem Unfall beteiligt waxaa shil ayaa ka qayb gashay ayuu ku leeyahay welche Dokumente müssen Sie andere Unfallbeteiligten auf Verlangen verweisen shil ayaa gashay ayuu ku leeyahay dokumentiyade ayaa qofka kaleetood ee shilka la gashay ayaa tusinaysa ayuu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder die Betriebserlaubnis waxaan tusinaya uu ku leeyahay baabuurka markaa iibsanaysa laba warqad kala jirto warqad waxaa la Zulassungsbescheinigung Teil 1 mid kalena waxaa la Teil 2 qaybta koowaad iyo qaybta labaad ay kala yihiin warqadaha mid waa yartahay midna weyn tahay wuxuu yiri marka mid Teil 1 ah iyo waxaan tusinaya uu ku leeyahay Betriebserlaubniska ogolaashada gaariga midka ah ayaan tusinaya uu ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay den Vertrag zur Hauptpflichtversicherung qolada caymiska kula jirtid fartaagooda ayaa tusinaysa uu ku leeyahay ta u dambeysana dan fuqshan license gaariga ID cardka ogolaashada oo ina gaariga ka xin kartid ayaa tusinaya uu ku leeyahay ayadana teeba sax ah haddii aad shil gashid qofku waxa u dhiibis waxay tahay Zulassungsbescheinigung Teil 1 mid iyo sidoo kale tood fuqshankaaga u dhiibeysa labadaas xab ayaa ka badan qofka haddii aad shil gashid su-aasha 44 wuxuu ku leeyahay Sie kommen als erster an einen Unfallstelle mit Verletzten wuxuu ku leeyahay adiga qofka ugu soo horeeyay imaaday meesha ku leeyahay shil meesha ka dhacay oo dhaawac jira ayaa imaaday ku leeyahay in welche Reihenfolge gehen Sie vor sida wax safkee xaaladde u maraysaa buu ku leeyahay in aad arintaas wax ka qabatid uu ku leeyahay qaybta koowaad marka ugu horeyso waxaan sameynaa uu ku leeyahay Erste Hilfe leisten waxaa sameynaa uu ku leeyahay gargaarka degdega sameynaa uu ku leeyahay tan kale wuxuu ku leeyahay Rettungsdienst alarmieren markaan gargaarka degdeg sameeyo ka bacdi ayaan waxaan wacaya uu ku leeyahay qolada dadka badbaadisa kadib markaa labadaas sameeyo ayaan waxaan sameynaa uu ku leeyahay Unfallstelle absichern waxaa xaqiijinaya uu ku leeyahay meesha oo shilka ka dhacay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay Unfallstelle absichern marka ugu horeyso waxa aan xaqiijinaya uu ku leeyahay meesha oo shilka ka dhacay tan labaad Erste Hilfe leisten waxaan sameynaya gargaarka degdeg uu ku leeyahay tan u dambeysana Rettungsdienst alarmieren kadibna waxaan ogeysiinaya uu ku leeyahay qolada gargaarka tan u dambeysa ayadana wuxuu ku leeyahay Rettungsdienst alarmieren marka ugu horeyso waxaan wacaya uu ku leeyahay qolada gargaarka degdeg Unfallstelle absichern waxaa xaqiijinaya meesha shilka oo ka dhacay Erste Hilfe leisten kadib waxaan sameynaya gargaarka degdeg oo sameynaya marka safkee u maraysaa si aad qofkan dhaawaca aad u badbaadisid marka waxaa sameynaysa waxay tahay in aad marka ugu horeysa ay meesha imaado shilka meesha ka dhacay xaqiijisid maxay yeeladaan shilka xaqiijin waxa laga yaabaa gaari kale inuu meesha imaado oo adiga iyo ninka kale saameyn kale idin sii geysto marka maadaama qofka ugu horeey tahay marka hore waxa xaqiijinaysa meesha oo shilka ka dhacay tan labaad waxaa samaysan qofka haddii oo xaalad degdeg ku jiro fuushank inta badan intaadan sameynin dadka waxay sameeyaan cashir waxay soo qaataa hal maalin oo gargaarka degdega oo qofka si loo badbaadiyay markii oo shilka galo cashirkaas soo qaadatay baa ku sameynaysaa qofka oo badbaadinaysa kadibna markaa qofka xaaladiisa amnigiisa aad sugtid gaariga kasoo saartid ama wuxuu u baahan yahay gaariga gudihiisa ugu samaysid kadib baa waxaa wacaysaa qolada gargaarka degdega wacaysaa oo u sheegaysaa in arrintan oo shil oo ka dhacay su-aasha 45aad wuxuu ku leeyahay Sie kommen als erster an einen Unfallstelle mit Verletzten wuxuu ku yiri qofka ugu horeeyay imaaday aad tahay ku leeyahay oo meel oo shil dhaawac ah ka jiro was sollten Sie in der Regel zuerst tun marka ugu horeyso maxaa sameynaysaa ku leeyahay prüfen waa xaqiijinaya ku leeyahay wie schwer die Verletzungen sind heerka uu gaarsiisan yahay aan fiirinaya uu ku leeyahay tan ku xigta Unfallstelle absichern waxaa xaqiijinaya uu ku leeyahay meesha oo shilka ka dhacay iyo ta u dambeysa next telefon waxaan tagaya uu ku leeyahay meesha oo telefoonka laga heli karo un Rettungsdienst alarmieren waxaana wacaya uu ku leeyahay qolada gargaarka degdega ayadana teeba sax waxa kaliya oo saxda ah waxay tahay mar walba haddii aad meel degtid waxaa ku qasbantahay in aad xaqiijisid meesha oo shilka oo ka dhacay Aisha 46 wuxuu ku leeyahay wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern adigoo autobahnka jooga sidee caawinaad u dalban kartaa ayuu ku leeyahay qaybta koowaad über telefonnummer 112 iyo 110
anigoo wacay uu ku leeyahay numberka 112 iyo 110 tan ku xigto wuxuu ku leeyahay uber autobahn raststätten waxaa la autobahnka dhexdiisa waxaa jirto meelo oo shidaalka lagu iibiyo dukaamo ka furiin maqaayada ka furiin kuwaas ayaan caawinad ka helaa uu ku leeyahay iyo über Notrufsäulen waxaa la autobahnka dhexdiisa meelo oo telefoon laga waca ayaa jiro oo telefono badan yaalaan meeshaas ayadana ka wacana ayuu ku leeyahay teebaa saxe dhammaantoodba caawinad waa ka weydiisan kartaa taleefonka haddii aa wacdoodan telefonood waa laga caawin karaa autobahnka maqaayadaha meesha ku yaalo kaleeto ama kuwa shidaalka ah ayadana caawinad waa ka dalban kartaa iyo ayadana tan u dambeyso ah in telefonada laga waco autobahnka dhexdiisa yaalo ayadana waa ka wacan kartaa qofka marka wax u baahan tahay su-aasha 47 wuxuu ku leeyahay Sie bemerken im Tunnel einen Unfall tunnelka bundada hoosteeda ayaa shil ka dhacay uu ku leeyahay was ist tun maxaa sameynaysaa qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Fahrzeug nicht verlassen gaariga ma ka dhex baxay uu ku leeyahay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay Warnblinklicht einschalten waxaan daaraya uu ku leeyahay nalka freejaha ah iyo ta u dambeyso Notdienst über Notrufstation informieren qolada gargaarka degdega ah anoo ka wacaya meesha xarunta telefoon laga waco ayaan ogeysiinaya ayuu ku leeyahay meesha wax ka dhaceen aydan intee waa saxe waxa saxda ee waxay tahay in aad nalka freejaha daartid isla markaana qolada gargaarka degdega ah wacdid si aad u ogeysiisid inay meesha wax ka dhaceen su-aasha 48 wuxuu ku leeyahay Sie sind ein Verkehrsunfall beteiligt shil ayaa ka qayb gashay ayuu ku leeyahay wozu sind Sie verpflichtet waxyaabaha qasab lagaga dhigay maxay tahay uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku dhahay Ich muss auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben. Waxaa siinaya ku leeyahay qofka xaqa leh number magacayga iyo adresskayga siinaya ku leeyahay bei geringfügigen Schaden unverzüglich zur Seite fahren haddii wax yar ay yihiin inta dhinacaya iskula bixeen ayuu ku leeyahay iyo tan u dambeyso den anderen Beteiligten angeben dass ich auf am Unfall beteiligt war in qof kale u sheegto in aniga shilka aniga iga imaaday ayaan u sheegayo qofka kaleetood ayuu ku leeyahay ayadan teeba sax dhammaantood waa sax haddii adiga shilka aad geystay magacaaga iyo adresskaaga ayaa siinaysaa qofka shilka u geystay tan ku xigta waxay tahay haddii wax yar ay tahay waxa isku geysteen dhinac ayaa iskula bixaysaan oo waddada ayaa firaaqeynaysaan iyo inaad usii sheegtid in adiga qofka shilka geystay in adiga ahayd inaad usii sheegtid intooda dhaba ma wada sax su-aasha 49aad wuxuu ku leeyahay Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall wie sichern Sie diesen Unfallstelle ab wuxuu ku leeyahay Landstraße adigoo maraya tuulooyinka waddooyinka ku yaala adigoo maraya ayaa shil geystay ayuu ku leeyahay sidee u xaqiijinaysaa shilka aad geystay ku leeyahay qaybta koowaad ich schalte sofort das Warnblinklicht nalka freejaha ayaan daara ku leeyahay ich warne waan u digaya ku leeyahay falls erforderlich andere Fahrzeuge zum Beispiel durch Handzeichen anoo gacanta haatinaya ayaan dadka u sheegaya ku leeyahay iyo ta u dambeyso ayadan ah ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca 100 Meter Entfernung von der Unfallstelle waxa Warndreieck waxa la baalka saddex geesoodka ah oo inta badan laamiga la dhigo kaas ayaa waxaan dhigayaa uu ku yiri meel si fiican lagu arkayo oo 100 mitir ka dheer meeshilka oo ka dhacay ayaa dhigayaa uu ku leeyahay ayadan teeba sax dhammaantood oo sax haddii oo shil dhaco waxaa daaraysaa nalka freejaha ah adoo gacanta u haatinaya dadka u sheegaysaa inuu meesha shil ka dhacay iyo tan u dambeyso ayadan ah in bahalka saddex geesoodka ah aad dhigtid 100 mitir ka dheer meesha shilka oo ka dhacay su-aasha kontonaad wuxuu ku leeyahay wozu sind Sie verpflichtet wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind maxaa waajib laga dhigo ku leeyahay markii aad shil ka qayb gashid ich muss anhalten waa inaa celiyaa ku leeyahay und mich über die Unfallfolge vergewissen waa inaa is ogeysiya inuu shil ka dhac meeshan kan ku xig wuxuu ku leeyahay ich muss Hilfe leisten waa inaad caawiyaa ku leeyahay sollte es verletzt geben haddii dhaawac jiro ich muss die Unfallstelle absichern waa inaa xaqiijiyaa meesha oo shilka oo ka dhacay ayadan intee waa saxe ayadan soo kale dhammaantood waa wada sax waa in aad sugaysaa inuu shil dhacay waa inaa caawinad geysta haddii uu dhaawac jiro iyo sidoo kaleetood waa inaa xaqiijisaa meesha shilka oo ka dhacay su-aasha kontoni koowaad wuxuu ku leeyahay was müssen Sie beachten maxay tahay waxyaabaha inaad ka taxadirtid before Sie in einem Tunnel einfahren inta aadan bundada hoosteed aan gelin waxyaabaha inaad ka taxadirtid ay tahay maxay tahay ku leeyahay Sonnenbrille abnehmen okiyaalka ayaa iska siibaysa oo qoraxda iska siibaysa ku leeyahay Nebelscheinwerfer einschalten nalka la yiraahdo Nebelscheinwerfer oo loogu talagalay markii ay dhadada waxa jirto ama roobka da loogu talagalay daarna ku leeyahay auch am Tag in gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren xataa maalintii tahay xataa oo ama iftiin badan oo ka jira meesha waxa daarta ku leeyahay nalka caadiga ah weyn nalka caadiga ah daar ayuu ku leeyahay idan teeba sax waxa saxda ah waxay tahay in aad okiyaal qoraxda hadii aad wadatina iska siibtid iyo sidoo kale hadii xataa maalin tahay nalka caadiga ah inaad bundada ku dhex martid
su-aasha konton labaad wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten haddii oo jam ka dhaco tunnelka hoostiisa sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay qaybta koowaad Fahrzeug sichern gaariga ayaa xaqiijinaysa uu ku leeyahay und umgehend verlassen waana iskaga tagaya uu ku leeyahay gaariga bei Stillstand mit ca. 5 Meter Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten qof ka horeeya 5 mitir ayaa space ayaa siinaysa uu ku leeyahay iyo van Blinklicht anschalten waxa daaraysa ku leeyahay freeja teeba sax waxa saxda ee waxay tahay in aad 5 mitir abstand asisid ama space asisid qaari ka horeeya iyo tan u dambaysa aydan in aad dartid nalka freeja Sash konten saxad wuxuu ku leeyahay wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einem Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden maxaa attention kaaga ka saameyn karo ayuu ku leeyahay markii aad tunnelka dhexdiisa dhex maraysid wuxuu ku leeyahay tunnel länge dhirka oo meesha ay tahay sidoo kale Beleuchtungsreflexion durch den Gegenverkehr baabuurta hortaada ka imaanayso iftiinka ayay soo daarayaan xataa attentionkaada ka waalaya ku leeyahay iyo gute Fahrbahnmarkierung iyo calaamadaha laamiga ku xariiqan haddii ay ayaga xataa fiican yihiin uu ku leeyahay attentionkaaga ayay ka waalayaan ayuu ku leeyahay ayadan teeba saxay waxa saxda waxay tahay haddii bundada ay tahay meel aad u dheer oo muddo badan aad ku jirto attentionkaada xoogaa qaqal ay ka gelinaysaa iyo sidoo kale nalalka baabuurta hortaada ka imaanaysa nalalka ay kugu soo ifinayaan ayagana sidoo kale attentionkaaga ay ka saameynayaan labadooda bis ayaa saxiix su-aasha konton afraad wuxuu ku leeyahay was ist bei einem Tunneldurchfahrt besonderes zu beachten waxyaabaha oo sida khaaska ayna ugu taxadirtid maxay tahay ku leeyahay markii aad bunda hoosteeda dhex maraysid wuxuu ku leeyahay Ablenkung durch Lichteffekt in ay ku sameeyaan nalalka ka imaanaya bundada Hinweis auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgang und Notruftelefon wuxuu ku leeyahay in aad ogaatid uu ku leeyahay meelaha amniga waxyaabaha amniga sugaya sida meesha oo haddii cala wax dhaco meesha Notausgang meesha loogu baxo bundada iyo sidoo kale meesha telefoonka laga waco inaad ogaatid iyo tan u dambaysa Ablenkung durch sehr starken Geräuschen iyo in ay ku sameeyaan dhawaaqa saa'idka ah ay ka imaanaya meesha ayadana teeba sax dhammaantood waa wada sax oo waxaa laga yaabaa in ay ku sameeyaan iftiinka saa'idka ah sidoo kale waxaa muhiimka ah in aad ogaatid meesha laga baxo iyo meesha degdeg wax loogu dirsado iyo waxaa sidoo kale ku sameyn karaa dhawaaqa ka imaanaya meesha maxay baabuurta markay bundada ku hoos socdaan badan yihiin baabuurta guuxooda ayaa saa'id ugu dhacaya su-aasha konton shanaad wuxuu ku leeyahay welche grundlegende Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten wuxuu ku leeyahay sharciyada muhiimka ah oo bundada marka qofka marayo oo ka taxadir ay tahay muxuu tahay ku leeyahay Anweisung und Information des Tunnelpersonals folgen leisten waxa raacda uu ku leeyahay waxyaabaha lagu siinayo talooyinka iyo informationka lagu siinayo ayaa raacaysa uu ku leeyahay nicht wenden ha soo kala celin ayuu ku leeyahay wenden waxaa la marka hore u socdid oo gaariga soo kala wareejinaysa gaariga soo kala celin uu ku leeyahay auch am Tage in guten beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren xataa haddii ay subax tahay oo iftiin badan oo jira xataa nalka caadiga oo Abblendlichtiga ku kaxay ayuu ku leeyahay aydan teeba saxay dhammaantood waa wada sax waa inaa raacdaa informationada lagu siinaya iyo talooyinka iyo sidoo kale gaariga inaadan soo kala celinin iyo ta u dambayso ayadana ah xataa maalintii haddii iftiin fiican oo jiro waxaad daaranaysaa nalkaaga caadi ayaad daaranaysaa su-aasha konton lixaad wuxuu ku leeyahay auf meiner Fahrtraute befindet sich ein Tunnel wadada aan ku socdo waxaa imaanaysa ku leeyahay Tunnel was sollte ich wissen maxay tahay waxyaaba inaa ogaado qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich kann darauf vertrauen waa aamina uu ku leeyahay dass im Notfall immer rechtzeitig Hilfskräfte zu stellen sind in mar walba meelaha degdega ah gargaarka degdega ah caawinaad laga heli karo waa aamina uu ku leeyahay qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay ich sollte wissen waa xitaa inaa ogaado wie ich meine Fahrzeug abstelle sida aan gaarigayga u dhigayo und verlasse aan ugu tagayo wenn ich nicht mehr weiterfahren kann haddii aanan hore usii socon karinin sida gaariga u dhigo aan ugu tago ayaan sii ogaanaya ku leeyahay inta u dambaysan wuxuu ku leeyahay ich sollte wissen waa inaa ogaado ku leeyahay wie Fluchtwege in Tunneln ausgewiesen sind sida meelaha loogu baxo bundada hoostiisa meelaha loogu baxo inaa ogaado ayaan isku daya ku leeyahay ayadana teeba saxay waxa saxda waxay tahay in aad ogaatid sida gaariga u dhigaysid ama ugu tagaysid
haddii aadan hor usii socon karaynin, iyo sidoo kaleetood meelaha looga baxo bundada in ayadan ogaatid. Su-aasha konton todoba wuxuu ku leeyahay während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Adigoo bundada ku dhex socda ayaa waxaa aragtay uu ku leeyahay in dab uu ka socdo gaarigaaga. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Inaa bundada ka baxdidna macquul maahan uu ku leeyahay wie verhalten Sie sich, sidee u macaamilaysaa. Ich halte möglichst weit rechts, inta ugu macquulsan dhanka midigta ayaa usii wadaya ku leeyahay. Oder in ein Bannbruch, waxaan dhigaa ku leeyahay Bannbruch waxaa la meel yariis oo baabuurta in la dhigo loogu talagalaa jirto, oo markuu gaariga ka halaabo meel la dhigaa jirto ayaa dhigaa ku leeyahay. Und lasse dann Zündschlüssel stecken. Furahana asagoo ku jiro aan ka tagaya ku leeyahay. Schalte die Wandblinkanlagen ein, waxaan daaraya ku leeyahay nalka fareejaha ayaan daaraya ku leeyahay. Iyo ta u dambeysa ich stelle den Motor ab, motorkan waan diminaya ku leeyahay. Ayadan teebaa saxe dhammaantooda sax. haddii oo waxa camal ku aragtid gaarigaaga inaad dhanka midigta geysid ama aad dhigtid meel oo baabuurta halaabyadiis oo beekin camal ah inaad dhex geshid oo furaha ugu tagtid, nalka fareejaha aad daartid, motorkaagana aad dimisid. Zuerst konnten Sie durch während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wuxuu ku yiri adigoo oo gaarigaaga wadid ayaa tunnelka dhexdiisa baabuurkaaga dab dastiisa ayaa waxaad qasab tahay uu ku leeyahay in aad gaariga meel dhigtid. Wie verhalten Sie sich jetzt? Hadda si oo macaamilaysaa ku yiri. Qaybta koowaad ich schließe mein Fahrzeug ab. Gaarigayga ayaa xiraya ku yiri. Ich lösche die Fahrzeug so wie möglich. waxa ana isku daya inaad damiyo dabka isku daya ku leeyahay. Ich löse Feueralarm und Notrufzeugen aus. waxa aanan ogeysiinaya ku leeyahay qolada alarmka ah oo iyo xarumaha gargaarka degdega ah. Ayadan teebaa saxe. waxa saxda ah waxay tahay in aad isku dayid in aad xalisid dabka inta macquulka ah, iyo sidoo kale in aad ogeysiisid qolada alarm, in aad ogeysiisid qolada alarmka ama xarumaha stationka. Su-aasha konton iyo sagaalaad wuxuu ku leeyahay wie verhalten Sie sich bei einem Tunneldurchfahrt richtig? Sida saxda ah u macaamilaysid sidee tahay uu ku leeyahay markii aad bunda ka hoos maraysid. Qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlüssellichten des vorausfahrende Fahrzeug orientieren kann. waxa aan ku soconaya ku leeyahay space yariis ah ayaa gaariga igu horeeya oo ugu soconaya ku leeyahay si aan nalalkan iyo waxaan ugu badbaado ku leeyahay. Qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgang und Notruftelefon ein. wuxuu ku leeyahay waxa ogeysiinaya ku leeyahay meelaha oo amniga laga xaqiijiyo sida meesha si gargaarka degdeg loogu baxo iyo telefoonada meelaha laga dirsado. ta u dambeysa ayadana wuxuu ku leeyahay in einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. haddii oo bundada oo baabuurtaad ka imaanaya ay jirto waxaan isku aadinaya uu ku leeyahay dhanka midigta ayaan maraya ayuu ku leeyahay. ayadan teebaa saxe. waxa saxda waxay tahay in aad ogaatid meelaha oo laga baxo iyo meelaha telefoonada laga dirsado, iyo tan u dambeysa ayadana ah in haddii baabuur hortaada ka imaanayso aad isku aadisid dhanka midigta. Su-aasha lixdanaad wuxuu ku leeyahay wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr? Sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay bundo ay dad hortaada baabuur hortaada ka imaanayaan. Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren. si aad überholen u samaysid waxaad dul maraysaa uu ku leeyahay Fahrstreifenbegrenzung waxa la xariiqmaha dhaadheerka ah ee wada laamiga ku dhex yaalo oo mamnuuc ka tahay in lagu gudbo, kuwaas ayaan dul maraya uu ku leeyahay. Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren. xariiqmaha dhaadheerka ah ma dul maraya ayuu ku leeyahay, iyo nicht wenn gaarigana ma soo kala celinay. ayadan teebaa saxe. waxa saxda ah waxay tahay in aadan xariiqmahaas dhaadheerka aadan dul marin iyo gaariga inaadan soo kala celinin, labadooda bis ayaa saxe. su-aasha 61aad isla markaana ah su-aasha ugu dambeysa casharkeena 11aad qaybtiisa labaad wuxuu ku leeyahay video daawo. wuxuu ku leeyahay haddaad video daawatay wie verhalten Sie sich jetzt richtig? hadda sida saxda u macaamili sidee tahay uu ku leeyahay. wuxuu ku leeyahay qaybta koowaad ich halte an, gaariga celinaya. Ich stelle
den Motor ab, motorkan daminaya. Lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug. Waxaan kaga tagaya ayuu ku leeyahay furahan kaga tagaya ayuu ku leeyahay markaa meesha. Tan kale wuxuu ku leeyahay Warte im Fahrzeug, gaariga ayaan ku dhex sugaya ayuu ku leeyahay. Auf die Räumung der Unfallstelle, waxaan sugaya ku inta laga nadiifinayo meesha shilka oo ka dhacay. Tan u dambeysa aydan wuxuu ku leeyahay Verlasse den Tunnel über den Notausgang. Wuxuu ku leeyahay waxaan kaga baxaya buundada meelaha laga baxo oo degdeg ah. Calaamadan meeshan oo kaleetoo kale waa laga baxaya, meeshan oo kale ayaa iskaga baxaya oo ku leeyahay meeshan oo kale waxaa la Notausgang ayaa ka baxaya ayuu ku leeyahay aydan teeba sax. waxa saxda ah waxay tahay marka in aad gaarigaaga furaha kaga tagtid iyo sidoo kale tood in aad gaariga aad ka baxdid meelaha gargaarka degdeg ah loogu talagalay in aad ka baxdid ayaa sax ah. intaan kusoo gabagabeynaa casharkeeni 11aad. haddii aad wax su'aal qabtid ama qalad ku aragtid mar walba ila soo xiriiri kartaa. inta kulankan kulanka loo ka xiiso badan kulmi doono waa anigoo Khaliija ah. fi amaan illah.